أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق ونعيمة هلك إيقاد أونيسان وجنالكيني دقاق دحشيدي معلم عصب موقع عصب لما نسحبتي ولا الله جنالك دقاق دحشيدي معلم وناكسن ومعلم جمعة مبارك جمعة وناكسن xilliga uu kasoo gaaray kuley haddii ay weli jimco kuu tahay jimco wanaagsan haddii ay ku ahayn kasii baxdayna insha allah waa u niyeysay jimcadii aad soo dhaaftay inaan yani aan kula wadaagoyo oo kala waqti aan nahay muuqaal cusub ayaan wadaa maanta insha allah su-aal ayaan uga jawaabi doonaa su-aalaha ay soo warsanaysiin aad u fara badan yihiin anigana sidii markaas ay u kala horeeyaan insha allah uga soo jawaabi doonaa oo liisay leeyihiin aan ku daraa markay soo gaaraan waa mahadsantihiin marka soo dhawaada walaalo aad u fara badan oo cusub ayaa channelka subscribe yiri waa ku mahadsantihiin jazakumullahu khayran insha allah wax wanaagsan iyo hal wada ayaan wada jiheysanahay wax khayr iska faa'iido khayrka dadka iska faa'iido insha allah ilaahay naga dhigo wixii shar ayna iskaga digo wixii khayr ayna isku booriyo aamin ya rabbi sidoo kale noo share gareeyay marka waa mahadsantihiin walaalaha channelka dhammaantiin idinko isku duuban waa codsi mar walba aan يعني هردك كسر دقو إن like تنو بدسان سي أمد بدن وجاره أو لو فائدة مقالة عن صدوة حاول تلقى قف يعني وحير أنت سلاك كتي وكفائدة إنه جار إن شاء الله سؤال عنك جواب دونه قرال كده أدو ديرا قف كلا ولا لها ما عنده إلى سو داجين نعيمه ما استعماش يعني لابتوب وكلام كمبيوتر لابتوب ما سوى رجعت دود يعني استعماش هذا أو ما تسنت قف كاس وإيجان حيو حال غيابه إنه يصير waxaan ay ku hadlayso dhan qoraal halkaan may ku soo qortaa yani qof walba si gaar ahaaneed uu wax u xifdiyo ama uu wax u bartaa jiro aniga computer maanta qof computer la'aan ma jirto qof walba uu haysta oo barnaamijyada ay daawanaysiin meesha aan ka soo gelinayo computer leeyahay ay soo marayso oo isku keen xiraayo kamerada kadib bacda kamera computer ay soo maraysa marka yani xirfadihii aan bartay iyo intii aan wax baranayo dhan inta yani qurbaha aan joogo computer un baan wax ku baranayo alxamdulilah maxaan ahaa oo computer la'aan maanta ima haysa laakiin wax aan jeclahay oo noloshayda yani ay aad uga carbisantaho waxaa jira qoraalka aadan wax u qoraa maxaa waaye channelka dhaqaaqa dhaxashida muuqaalkii minimalismic aan uga soo hadlayay qofkii daawaday waan nila wadaagay yani walaalaha gadaal ka yimid haddaad dib u daawadeen waan arki karaa laakiin walaalihii hore ila joog waan usoo bandhigay macnaha markii maktabka buwaagta aan minimalismiga aan ku sameynayay waan tuso waxaan dhahay waxaanu buug yani gacanteydaan ku qoray lama tirin karo maa cadadna waa yani boqolaal kor u dhaafa oo yani oo daftar waxay aan rabo marka inaan ka miro dhaliyo ama aan qofka aan u gudbinayo si yani xasuus laho qofkaasna ay ku herayso anigana ay igu herayso haddii aan doonayo computer kuma qoro oo xasuustayda waxay aad yani ay u jeceshahay inaan qoro markaan qoraayana qalin hal xab ma isticmaalayo guduuda isticmaala buluga isticmaala madooba isticmaala yani cagaar isticmaala kalaradii aan sii wata waa sii kalareyna qalin walba wax gooni ahoo aan ku xasuusto ii leeyahay waa habkii aan wax isku baray marka qof kasta waa kula taliya waxaan dhahay haddii aad noocaa samayn kartid samee computerka wixii aad ku qortid xasuustiisa aaday ay u yartahay muxuu ahay aadaan looga digaa oo la yidhaha xataa wixii aad rabtid inaad dib dambo mustaqbalka aad u xasuusatid qalinaa lagu qoraa fartaas يعني فريرة يا مرتاد مرودسو ما يفرقيري مرودسو لما دوتن يا سولكا يا فرتان دير سدح دو حس لا قرطو يا مسكحدا waxa ka dhaxeeya connection gaar ahaaneed oo ay wax ku qabanayso maskaxda ay yani aqbalayso hadii aad cunto cunaysid oo kale tusaalahan gacanta marka aad ku cuntid marka qaado ku cuntid waa kale dharag badan tahay marka siyaabahaas ku jiro oo jirka yani risaalooyinkaas iyo connectionka iyo signalada ka dhaxeeya aad u fara badan marka aad u maadsantaa ina saas iiga naxday laptopka waxaan ka jeclahay waxaan inta ku qoraay kuwaasaan kuwa email dhal badan oo aniga aan isku carbiyoon isku tababaray jazakallahu khayr su'aasha marka qalgaan ay ku qoran tahay igumana adka inaan qoro oo yani daal kuma dareemo oo wixii aad jeceshahay oona kuma dareemaysid daal kuma dareemaysid caajis kuma dareemaysid نعب يعني أو مركل مثلا أنا كم قلاي
وحان يعني حتى أود ليه لا بك ستح بك مركي أن قرأ إن حتى أدنى أن أنفع ويان ولي ويرعدان وهذا أن سيقرأ هذا برنامج أن سوق بنا بدنا لقد فينش كي قرينهين إن وصل سوماليين ويا سومالي أسوب بدلويا وحي يقول تاي ولي لبه هو اللي يسد حول سماع وحوم معكو وأنا إسي كورينا ينو أنا أقصي كورا وحري أقصر عفوا كنا قلنا عدنا في سومالينا أيقو يقرنا على أبا بوقتي أن لقد فينش مركان ودن كان سو جوكس دور 10 سنة كهر أن كبلاو في يعني دفتردي أن كبلاو منها أنا قاعد أقول منها أنا سينا أديك أن كل جنا يا أن ولي أن هستا أو ده يعني دفتر يجمع فكذا مركا قفل بقدر قلنا إن شاء الله تاسو كلنت إنه سماه وكمبيوتر وكلي سكوه لينين وآلة هذا صباح لكن جركي إنه أصلا استعماله يا هذا كسي مهم سن حياله marka qaarkeed waxa arkaysa jimacsiga oo kaleento barnaamijyada aan soo gudbiyo waaye oo adiga hoow channelka aan kusoo gudbiyo iscaateenta waxaan walaalaha badankood aan la wadaagaa geedka lagu ordaayo oo muxuu ahay kaarbeedka haddii maanta dhan aad iska saaran tahay jirkaada inuusan waxna kaa ridin oo waxna ka aqbalin laga yaabo ama murqiha uu kaa dhameen laakiin marka aad jirkaada aad isticmaalaysid oo aad kaliga aad samaynaysid oo yani ama kadaloobsiga ama boodboodki ama boxingki waxaas oo dhan jirka kaligiisa is dhoojinayo jir qurux badan uu noqona oo kaal arag marka insha Allah jirka asaa is jecel inuu connectionkiisa uu muxuu ahay xiriir uu ka dhaxeeyo su'aashan waxay dhaysaa marka intaas waxay ahayd hordhici oo qof walbana aan rabo insha Allah inaan ku dhiirigeliyo markastana ay isweydiinayaan walaalaha badankood qaarna ay igu soo dhiiradeen muxuu ahay maxaa warqadaha iyo booga iyo daftarka iyo ugu soo qorata aan jeclahay muxuu ahay waxaan ku jirto xasuusteyda ilaa waan qoray marka aan soo gudbinayo macnaha igama baahna inaan xasuusto aan kala iloobo wixii aan ku soo gudbin lahayo idil ku qoran oo hadhow aan dheeyay Allah talo taasna way jirtay maxaa ugu sheegi weys ilaan 184 korka xifdisanahay wixii kalena ma aha saas oo kaleento oo inaan soo xifdinayo wax dhan oo caafimaad ku saabsan ama talooyin ku saabsan waa inaan meeshii aan xasuus qorka ku soo qortay aan kaaga sheegayo marka insha Allah soo dhawaada su'aashan waxay leedahay marka السلام عليكم نعيمة ولا وحان أهان جري قف يرانتي بلشدة بلشاوي قف يرانتي بلشاوي هذا وحان جرا دا كوي لباتن وحان مدو سنة يسيدد بلوت أنكو نولا هاي كلي أهانشو وحان نعي حريرك أن بلشدة للي هاي هذا نقطة ولالو قرابو أصحابتي دي اسكولك كل جود وان نعي waan gooyay waxaan door bidaa kali ahaanshaha waxaan walaalka codsanayaa inaad ii sheegto maxaa keeni kara yani su'aal aad u dheer ah heed oo si fiican loo fahmi karo qofka walaal uu noo soo kala bixiyay kadibna su'aashan jawaabteeda waxa intii oo ilaahay iga karsiyaan insha Allah aan qofka walaal aan dhihi doona waxa keeni karo kadibna maxaa yani ka saacidi karo ka caawin karo badana waxaa dhacdaa qofka markii noocan oo kale uu isku arkaayo waa la kala saaraa marka qaar waxaa la yiraahaa yani qofka shakhsiyadiisa noocaas ah marka shakhsiyada tahay macnaha ma noqonayso in aad dadkii oo dhan aad ka go'aysid shakhsiyad way jirtaa oo aan ka soo hadlayaan introvertic shakhsiyada la yiraaho kali ahaanshahay aad u jeceshahay oo waqtiyadaas ay door bidaa in yani enerjigeeda aad u xoogan ay kalinimada ay wax soo saar fiican ay ku dhaliso laakiin haddana sidaas ay tahay kama maaranto dadkii oo laazim qof bulsho yani qof dad bulsho ka maarmo ma jiro qof ka maarmo ma jiro qof dad xiriirkooda ka maarmo ma jiro may ilaahay kali ilaahay waahid ilaahay kariimkeena kali anaga qof bini aadan oo kali ahaansho ku noolaan karo ma jirto taas inaan wada ogaano oo haddii aad yani introvertiga shakhsiyadii ahayd aad tahay waa u baahanta inaad dad la xiriirtid laakiin haddii meesha uu yimaado yani يمادو نعب ويمادو حنون أرنت إسكو بدليسا أو محايلة شخصيتي عن كسوها اللي انترفيرت جهاد ضد منع بنو وحلي بلشد أي صراحة كشو ولا وقت ولا قاعدين كرتها شخصيتها وهدي أي كود هذا ينعبت معها إن بلشد وقت لا قاعدته وحبوا معها هدي لكن مرك يعني نعب وبلشد وكوي من أما عاد يعني قول إسكو سوي حرتوت يعني قف كلي أهانشها door biday aad noqotay sida aad nala wadaagtay waa arin u baahan markaas in aan caafimaad ahaan
in loo daryeelo u baahan qofka kaligiis markuu nool yahay waxyaabo aad u fara badan oo dhibaato oo waxa uu imaan kara xataa mararka qaar in uu yani cabsi la noolaado qof walba uu ka argagaxo uu naco taas xanuuna aniga aan u aqaana oo dhaawacyo waaye iyo dhibaato mararka qaarkeed dadka soo gaaro ay gaarsiiyaan dadkii markaas nolosha uu la wadaago kaleento maxaa keeni karo yaan insha Allah aan dul istaagayna marka in aad kali ahaanshahan aad door bidid oo dareen nacayb oo dadkii aad nacaysidna yani uu kugu dhasho mid koobaad waan isleeyahay waxay tahay xiriir yani hore kuu soo maro kale xiriirkaas oo muhiim ku ahaa xiriir markii la macna nin aad isjecleedeen ama aad isfukansanayseen ama aad naag aad nin naag jeclaa maaha yani nin inaag xiriirka dhexmaray kaliya maaha laba qofood oo dumar oo xiriir fiican oo aad u qurux badan oo wada noolaansho oo is-aaminid leh uu dhexmari karaa dad walaalo dhexmari karaa ilmo qaraabo dhexmari karaa marka haddii xiriir la yiraaha yani taas kaliya ma ahan xiriir markaas muhiim ku ahaa oo aad iyo aad kalsooni buuxdo oo dhab ahaaneed aad yani siisay oo kala go' ku yimid oo kaleento ama xumeyn uu kaaga yimid way kugu keeni kartaa in arrinkan ay kugu aruuriso guriga taasoo ay tahay in trauma ay kugu rido kaleento oo khalaas dadkii oo dhan attentionkaada iyo aad ka ilaalisatid oo tiraahid distance weyn aanoo dhexeeya aniga iyo dadka taasna marka qofna uma fiicno oo macnaha waxaasoo kale way imaadaan laakiin marxaladaha hadhow maxaa kaa caawin karo yaan gadaal uga tegaynaa marka kala go-aas xiriirka oo kaleento wuu keeni karaa in arrintaas gurigu kugu aruurso dadka necebkooda uu ku galay way imaan kartaa dhinacuu rabo ku imaan karaa waxay noqon kartaa bulshada inay kaaga imaato deegaanka inay kaaga imaato shaqo inay kaaga imaato goob shaqo kaleenta dhibkaas iskuul iyo waxbarasho inay kaaga imaato geeri dad yani qofaad jecleedo markaas kala geeriyooda inay noqoto furiin wuu noqon karaa oo markaas dhacay oo kaleento oo hadhow shoog arrintaas ay ka imaatay oo aadan filanaynin oo kale oo meel weyn kaaga yaali waxaa kaleento keeni karaa haddii aad weli guursanin oo kale xiriir qof aad la laheedeen oo si yani rasmi nolosha aad u yiibato istiri khalaas bes waaye arrinteyda waa isku dhammaad wax fiican ayaa muxuu ahay aan doorbida oo sidii aad rabti aan noqonin waxaasoo dhan way keeni karaan waxaa marka aad isku arkaysid oo kaleento waxay noqonaysaa marka oo guriga kugu soo aruurinayo inaad depression aa qaadid oo hadhow masanus aa la yiraha masanuskaas oo depression aa qaadid niyad jab aad u xoogan oo kugu yimaado kadibna ahdistuksen waxaa waaye anxiety inay kugu imaato walaac ama quluq aa la yiraha af carabiga yani quluqii oo dabeecadda ahay maaha yani qaaf waaye qaaf marka uu noqdo waxa waaye walaac waa markii yani qa ay noqoto af carabigane macnaha dabeecad haddii quluq la yiraaho qa'da la godane dabeecaday noqotaa qalaq haddii la yiraahana awuuray noqotaa markay qa tahay laakiin markay qaaf tahay oo haddana ay godan tahay waxay noqonaysaa marka walaac inay kugu oo isku aragtid oo kala imaanaysa oo maanta dhan anxiety walaacaas ku nooshahay waxaa kaloo noqon kartaa in aad muxuu ahay ciddii aad markaas doorbidayso ama iskool inaad doorbidayso muxuu ahay imtixaan rabtay inaad ku baasid oo kalood ku dhacday oo hadhow qof kalsoonidiisa hoos ay u dhacda aan noqotid kalsooni daro ee meeshaas kaaga imaato taasna way keeni kartaa oo adi dhan ay isu aragtid kalsooni yari xilligii kalsoonida ay dhaawac u soo gaarana maxaa bilaabanaysa qofka shakhsiyadiisii iyo qofku ahaayo dhan inay meesha ka baxda ay dhunto taas marka saameyn bulshadii kaasoo oodayso anigii dhacayaa anigii oo meel dheer la iga filanaya anigii badanaa waxaa dhacdaa qofka marka dhalinyarada noocaas oo kaleento sanadkaas 20 meelaas ay joogaan oo jaamacadaha ay inay galaan ay daneynayeen oo dugsiga sare ka soo baxaan haddii dadkii bulshadii uu markaas la jaan qaado la socdo kaleento uu ka haro kale wuxuu u arkaa wax xun khalaas qof oo muxuu ahaay waxna keeni waayo dadkii uu la socday ka haray may jaaniskii nolosha waa tijaabo la tarkabuna dabaqan can dabaq marba maxaa imaanaya mushkilad kaleento habkii looga bixi lahaa waa mid aad ku koraysid nolosha marka qofkan oo kale muxuu ahaay waa xilligii uu diyaarinayay oo uu bulshada la soo jaan qaadi lahaayo dhibaatooyinka oo adkeysigooda ay bilaaban lahayd marka niyad jab xilligan oo kale aad u imaataa haddii markaas dad ku dhiirigeliyo oo ku garab taagan oo ku buush gareenayo aaweysid haddana way usii daran tahay maxaa yeele waa xilli aad u baahan tahay in lagu garab istaago xataa cala aqal haddii wax kalenta lagu darayno lagu dhaho waa kartaa haddii aad dhacday sanadka dambo maxaa kuu diiday waa la xareysanaa haddana intii sanadkaas la gaaraya xataa waa sii shaqaysan kartaa waxaa qabsan kartaa waxaa samayn kartaa oo lagugu ceebinayn lagu dhahayn allah way ceebeysay maxaa wax u baran weysay dadkii kula xareystay waa kana way baaseen way heleen oolaan ku aqaanay oo maa dhibca fiican keeni jirtay
waxyaabahaas oo gadaalna way keentaa in qofkan horu dhaqaaqiisii ay break ku qabsanto marka taasoo kale qof kastoo markaas dhalinyaro korinayo da-aadan oo kale wuxuu u baahan yihiin buushkareen dadnimadooda iyo waqtiga la geliyey oo in waqtigii miro dhalka ay soo dhowdahay yani ay soo seexdaan ay soo urursadaan wax fiican ma aha way dhacdaa marka taasoo kaleentana yani in kalsoonidii shakhsiyadii ay kaa dhaawacanto ay hoos u dhacdo qiimihii aad laheed oo kale yani aad mar dambe isqiimeyn weysid oo aad tiraahdo khalaas qofaan u qalminaan ahay oo aad u ogolaatid dadka kale keliya inay u qalmaan waxaas iyo wax lamid ah oo aad u qalmin dayaca meesha ka bilaabanaya marka oo noloshaadii aad dayacdid ay kuga adkaato marka la qabsigii noloshaan nuucaan ah oo marba markay kasii hooseysa yani down hoos le ay usii socoto waxaa kaloo keeni karo haddii meel aad usoo guurto oo kaleento ood ku cusub tahay la qabsiga haddii wadan uu noqdo hadday magaalo noqoto hadday iskuul uu noqdo deegaanka iyo meesha markaas aad usoo guurtay hadday kugu adkaato inaad la qabsatid oo kale way keentaa arrimahaas oo yani inaad aruursatidood howlahaas kugu adkaadaan waxaa kaloo keeni karo haddii howlo cusub yani aad rabtid inaad qabatid kadibna ay kugu jiraan wax yani aad arrintaas ka cabsanaysid oo kale oo natiijada ka dhalan doonto badanaa arrimahan waxay ku imaataa dadka filanayo natiijada dhalan doonto inay 100% noqoto weligaa 100% lama rajeeyo oo macnaha haddii laba qofood ay tartanto oo qof kala meesha ay xariisanayso qof kale uu soo xariisanooya laba dhagax haddii isku dhufto mid leeja waay macnaha haddii dad aad tartantiin aad waa soo helay laakiin khibrada la soo helaysa oo wixii aad ka soo baratay laazim waa inay ahaadaan wax ku anfaco hadhow doorka dambe oo aad tagaysid wax ku kaarikeeyo iyo aad soo ogaatid qof cusub marka labaad ku noqonaysid isku mid ma noqonaysiin oo waxaa soo dhan xoogaa inaad isku dhiirigelisid oo aad iyo aad yani arrintaas ay u noqoto mid shidaal kuu noqoto oo cabsida kaa saarto waxaa kaleento oo keeni karo nolol cusub inaad rabtid inaad abuurtid oo kaleento horena ay kugu soo dhaceen waxyaabo yani kusoo murugeliyo oo kaa shaki gelinayo wixii oo kugu soo dhacay taas waxay keenaysaa marka in wax walba oo tijaabin lahayd iyo nolosha cusub aad abuuri lahayd cabsi ay kaa hayso intaas in la eg marka maskaxda ku warmitos ama cariirigaas ama xamuulkaas ay saaran tahay marna lagama yaabo inaa arrintan ka baxdid ma intii in la eg maskaxda marka xamuul oo koro oo kadibna xamuulkaas aad fahmi weysid ama lagula fahmi waayo waxaa bilaabanayso in jirkii uu muxuu ahaay uu kaa dhaawo waxaan u malaynaa marka qaarkeed markii maskaxda le ay tahay in jirka uu dhaawacaynin jirkan inuu dhaqaaqo shaqeeyo sidii la rabo wax loogu qabto muxuu ahaay lagu hurdo cunto sidii la rabo loo cuno jirkii metabolismigii iyo muxuu ahaay mashiinada sidii la rabo ay u shaqeeyaan maskaxdana maamulkeeda iska leh hadhow waxay imaanaya marka hormoonadii dhanaa isku khaldamaayo dhibaato kaleenta iyo dheefshiidkii iyo wixii oo dhan inay shaqadoodii sidii la rabo si aan ahayn ay u qabtaan marka go-aamo qaldan inaa qaadatidaa meesha o dhan kasoo bixayso oo maxaa yeele psychology ahaan marka u xanuunsato yani mental health uu ku haayo wuxuu kaa dhaawacaa muxuu ahaay physical ahaan jismigaadii habkii ugu shaqeynayay iyo organadaadii oo dhanaa wareeraayo kadib bulshadiina waad kasoo aruursatay oo gurigaa kusoo aruursatay marka haddii bulshada aad kasoo aruursatay mental healthna uu ku haayo laazim si automatical physicalka uu xanuunsana maxaa yeele bulshada ku dhex jurideeda wax badan oo yani oo physical ah oo ku wanaagsanaanaya jiro xilli aad dadkii aad waqti la qaadanaysid xilli aad farxad aad la qoslaysid xilli aad muxuu ahaay wax badan way isa saameynayaan kulligood intaa markay kaa saameysmaan marka haddana hinkininkii imaanaysa kadibna cognitivekii oo hadhow diinyari iyo inay diintii hoos u dhacdo subxaan allah waxaasoo dhan way isku salleeyihiin oo intoodo dhan inay hagaagsanaadaan nolosheena iyo yani horumarkeena ku jiro iyo caafimaadkeena taasoo kaleentana marka way keentaa waxaan isleeyahay muuqaalkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa insha allah uu dheeraana haddii aan iraaho maxaa caawimaad ah oo yani gargaar degdeg ah oo qofkan yani jiifka ka saarayo bulshadiina ku dhex daraayo intii ay markaas aan isleeyahay qofkan walaal wuu anfacaa oo ani aan haayaan soo gudbin doonaa insha allah waxyaabo badan oo ka fara badan haddaa nooyeysiin nala soo wadaaga idinkan insha allah maxaa keena kaliya ahayd su-aasha laakiin wixii keena markaan ogaanay sidee looga bixi karaana laazim in dawadeedii aan tilmaano si qof walbaba uu noqdo qof sariirta kasoo dago cidna marabna inaan ay sariirta saarnaato insha allah waa idin salaam waxaan idin leeyahay qof walbo muxuu ahaay ha iska taxadiro ha isu roonaano aan iscaawino muxuu ahaay wixii wanaag ah oo biri ah oo taqwo ah qofka kaloo walaalka ah walaalkaada la jeclaa wanaaga alay hortiisa ay heshiid maaho aan isla jeclaano wixii xunna aan insha allah iska reebno
انت حنوصن الله عافيه dad badan oo waxa jira aan isbitaalo jiifin oo sarra saarneen laakiin xanuunsan oo dhar oo ugu jiraan dadkaas ilaahay ha caafiyo muxuu ahaay inta xanuunsan oo isbitaalada ku jirtan ilaahay caafiyo inta caafimaad qabtan ilaahay ha u taamiyelo oo garaadkii iyo garashadii in caafimaadka uu muhiim yahayna ilaahay insha Allah hana wada garadsiyo sa ilaahay nicmooyinkiisa aan ku shukrino u niraaho ilaahay nicmadaada ku shukrinayna maalinta aad noogu dartaan ku shukrinayna inaan neebsanayno wax urinayna muxuu ahaay ku shukrinayna inaan wax dhadhaminayna ku shukrinayna inaan wax maqlayna ku shukrinayna inaan wax arkayna subhanallah wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha hadii aan isku dayno nicmooyinka ilaahay uu nasiiyay inaan xisaabno marna ma xisaabi karno oo waxay noqonaysaa subhanallah yani mid bayna mid ku sii diibto intii laakiin nicmooyinka alla aadan arkaynin waa intii adigana aad sacaadada aad ka fogtaho muxuu ahaay inaad sacaado ku noolaatid meesha ay ka bixiyso adoo guuleysatay milyan dheer oo waxa arkaysaa hadana aan sacaado haysanin maxaa yeelay ruuxdii ma noolo ruuxdii meesha dilan ama sida la rib aad ugu shaqeynoonin ruuxdana ilaahay yaa iska leh quli ruuxu min amri rabbi yani soomayn ma sha Allah tabaarak Allah in salaam waxa idin leeyahay intaas iyo nabadgelyo waxa ku dhigeeni iyo ku noolow nolosha aad doonaysid assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh